دمر وايد السلام عروري وايد السلام لما شعبك والسلام هالنولادو واي أسعى هالنولادو واي أسعى horta ballan kasta oo annaga aan galnay 2004 ilaa iyo hadda annaga haddaana dawladda ballankaas waan ka soo baxnay waana ka rumaynay laakiin qoladan xisbigan la dhoo talagu been iyo naxli ay shacabkooda u sheegeen wax ballan ay leeyihiin haba yaraatee ma laha walaalka sida aabaha oo kale dadka gacanta u haatay xushmad ayaad ka helaysaa looma baahna waa aabbaha soo maaha guriga markii la joogo keliya ayuu aabbeeyaa laakiin bannaanka markii la soo baxo qof walba ayuu hoggaami u yahay mar walbana waxaa loo baahan yahay hoggaamiyaha tallaabo inaad ka dambayso laakiin inaan isla barbardhigno maahan hoggaamiyaasheenna walaalka adiga siyaasad waxaad ka taqaanid ma laha hadda ninka la yidhaahdo baabuu doorashaa bilaabatay wax walba oo ballan qaadayana waa been iyo naxli sababtoo ah hooyadiis xataa cunto ma siin laakiin hadda wuxuu rabaa ma taqaana eedadiis inuu jijimadaaba u gado walaalka adiga aabbaha ayaa ku wacay ee soo dhaqaaji wiilkayga jagan mohan reddy aad iyo aad ugu faraxsan yahay runtii booskan inuu soo istaago hadda wuxuu rabaa inuu u tartamo jagada xildhibaannimo waxaan rabaa adinka in uu ka tirsanaado waan inka ballan qaadaya marka waxaan rabaa maadaama uu idin ilaalinayo inaad u ducaysaan
xisbigeena 20 gobol iyo waliba hal caasimad ayuu maamulaa madxum oo waliba ducuf ah oo dadka gaagaaban ah sababta macnaha oo noo fashilay maxay tahay xisbiga sare asagoo ka tirsan waxba ma nooma qaban ninkaas marka CM-ka asagoo ka tirsan ma waxa kula tahay wax noo qaban anaga waxa u malayaa caasimadeena maadaama ay shidan tahay asiga awood inuu ku leeyahay hadirtan inter congress ma ee YSR way مدن أرجو كم غلا سو هذا البل هل مت أي ربنا كل شيء أنا جمشان سبب أي هرتا أني متسببتنا وحكى لما أن حوجة حسبي كوح ير أو قلنت أيام وذنا ليس كت أي ربني إن نكون ابن مرودنا وين الوقت كله مدن سوقلي مدن أرجن حالة ير أو أمر جسايات من مركا إلا 5 دقيقة وحير السوقيا وياي واحد بعد تمرن وعادي ما تسرت فريسو صاحب مدحة كروغات قف مدحة دوهوس جينا وعدوية بس سوال بقو أن حسبي جاga أنو سوهر جيدي ما تقانا عديقة كرسيكان قابك آدوهاشي قابك أنا كوشيجا dadkaaga ayaa kalsooni kugu qaba marka hogaamiyaha mar walba waxa loo baahan yahay inuu madaxiisu oo koreeyo madaxiisu inuu hoos geeyo ma waa hadli kartaa ii sheeg mudane waxaan joojinayay inay dumiyaan guryaha masaakiinta ee wadada dhexdeeda ku yaalo waxay leeyihiin dukaaman ayaa laga furayaa wadada weyn anigana waxaan cayay ninka maamulaha degmada xanaaqna wuu ii geeyay aniga midaasi haddana waxaa la soo saaray warqaddii aniga laygu xiri lahay xoog hayaa ayaa mudane oo kanaga waxa mudane waa xisbiga ka soo horjeeda xildhibaankooda maxaa tiri subax wanaagsan xoog hayay subax la mid ah mudane waxaan maqlayaa warqad xiritaan inaad u soo saartay MLA-ga mudan run waa xildhibaanka runtii hadda ayaan wada hadalnay wuxuuna diyaar u yahay inuu ku raali gareeyo may mudane xadkiisa ayuu soo gudbay annagana waxyaabahaas xadgudubka uma adkaysan karno mudane ninkan waa xildhibaan wanaagsan niyadiisu way wanaagsan tahay adigana nin shaqaale ayaa tahay asna waa shaqaale marka qorshaha aad ka leedahay maxay tahay xiritaankiisa ii sheeg bal may mudane arrintaas go'aan adag waa inaan ka qaadanaa weliba fariin adag ayaan u diraynaa aniga ma fahmin qorshaha adiga aad ka leedahay xarigiisa tan kale annaga xisbigeennu ma sheegayo nin xildhibaan in xilkiisa laga qaado إقرأ لك مدني دب ملا أنا حلي وحبا والول مدني مرة فربنا ذي عاوسي أنا وكاسور جدول من حزبي هذا هذه بعض ما هالسنته أما صاحبك ينقضوا أما عدوك ينقضوا أنا وحن جعل قفك فالك أسوق عند كل جرء الشرعي أمره هاي خير بدنا كوري جاي نعم محيط هاسدان توان كنا إيمان أنا لقى حصدي أنا كنا سكار كبر كان إيمان ناي هذا ولا بيت توان كبر مرودين ما يسان إيمان صدقني سيدا خفوضة برلمان كيمة يا مشان جوجان أنا كنا هالكانوا حنو فرقنا سيدي تشغالو كله واو يا بنا محيط هاسدان halkani waa xisbi waxaad baranaysaa sida codadka loo helo iyo sida loo dulqaato dhaqso ayaad baranaysaa
marwada ayaan la hadlayaa wax walbana aniga kuu soo sheegi doono haye macsalaama ku leeyahay mudanaha wuxuu rabaa in marwada oo la kulmo waayahay balad ma haysta asiga waa arrin degdeg ah dhibaato ma lahan halkan igu susug waa soo laabanaa waayahay marwo iga raali noqo maxaa dhacay ra'iisul wasaaraha wuxuu doonayaa adiga inuu kula kulmay aqay xilligan kafayga cawaaya ayaa la taagan yahay waan ogahay balse waa muhiim adigoo raali ah waayahay waan la kulmayaa aad baad u mahadsan tahay وانا iga qaaday marwo ku salaamay waa ku salaamay marwo وانا iga waa ku qaaday salaam marwo kani waa Dr. Wayes Rajeshkar Reddy wiilkiisa waa ku salaamay marwo kan waa Sooryana Reddy neelyaraa iyo ku sujeeda awoowe magaca aabihii u sii maad u sheegtid dhaqsano marwo warangal ayuu ku soo jeedaa midkaadna iga raali noqo marwo kani waa Wayes Jagan Mohan Reddy baarlamaanka Kadaba ayuu ka tirsan yahay waa ku salaamay marwo ninkaana la kulan magaciisa Fafeeg ayaa la dhahaa waan ku salaamay kanna waa inaa barataa waa ku salaamay mudane maama see tahay waan fiicanahay aniga dhibkaaga iga waran aniga dhibna waxay qabi karaana gurigayga intida igu imaadaa cunto iga cuntay ah howl walbana ii fududaysay lacagtayda howlgabkana waa qaataa hay meeshaan waa dheertee maxaad u timi meeshaan dheer waxaan u imaadaa caanahan adiga inaan ku siiyo dadkan ii soo fasax adikoo maasan gudaha gala soo socda walaal maanta maxkamadda waad ka soo daahday berita soo laabo iska bax marka walaalka anuka meel fog oo dheeraan ka imaanay si imkan arkini manaqi karna anaka galabtilina qiyayna taas maanta macquul ma ahan meeshaan dad badanaa ka buuxo mudane oo siga si fiican si kasa teeda kale sawir xataa oo xasuusan isla galni waa kana labada kun iyo saddexdii ahayd markii jaamacadda isla dhameeyeen si fiican u fiiri oo tusile xataa sawirkan boqolaal qof asiga la gali karto sidoo ku xasuusan karaa marka war labadooda meel dheer isla soo marinay hal mar la kulansiino waayahay dhib ma laha aniga la kulansiinay hay soo gal adiga idinkan hay xaaladiin soo ma fiicnidiin waa mahadsantiin aad iyo aad u mahadsantiin walaalka awaayis arka hadda warqadaas aruuriyaya mudane kool muhiima ku yaala waayahay anaa u imaanaya haye maca salaama aboowe waayis arkuu buxoyaaba aboowe aboowe soo day soo baxee soo gudba walaal shifaa waa soo fogaatay walaalka inta maxaa ku keenay sheeg bal walaalka shaqadoo yaran ku haayano shaqada gadaal nooga dhige ma soo quraacatii sheeg bal markii shaqada ay dhammaatay la cunaano horta marka hore waa inaad quraacataa abooy dadka tuulooda jooga dhan anay isoo raacin bannaankeena joogaan oyika dhammaan soo wada geli mudane gabadheeda dhagoolnimada way ku dhalatay titoorada waxay dhaheen gabadhan waxay u baahan tahay mashiin ama dhakhtar caalamiya runtii taas aniga awood uma haayo inay caawisaan ayaan rabaa mudane waa ku baryaa anaka awood uma hayn mashiin inaa iibsano laakiin adiga middaas garab runtii waa nagu sii kartaa waa ku baryaa inaana caawi dhib ma laha anaa idin caawinaya sida ugu dhaqsiyaa badan dadkan codsigooda waan la fuliyaa mudan haddii aadan iga xumaanin tala ma bixin karaana waayahay ii sheeg haddii aan fiirino lacagaa naga soo galaan tuulada run ahaantii annaga 4 laag hal qof ma ku bixin karno sababtoo ah dad badan ayaan daaweynaynaa soo ma ahanna
aniga waan ku maqlaa hadalkaagana waa i fahamsiida laakiin waxaan kaa rabaa ayada sidaad aniga ii fahamsiiday bal ku fahamsiiye waa ku salaam mudane waa kaa qaada walaalo ku salaamay waa kaa qaada haye yariisay may maqli kartaa waxaan ku weydiinaa canug walba oo dhagooloo tuuladan deggan haddii mashinkaas aan siin imise qarash nooga baxeeda 2 ilaa 3 karoor ayay qaadanaysaa mudane qof walba oo dhagajiga waa in loo diyaariyaa lacagtaasna la dhiibaa lacagahaasoo saas u badan intee ka keenaynaa mudane sidaad lacag u aruurinayseen oo xaaraan aad cunayseen waa fuurteen war anoo dadkay wax fiican u helaaya lacag inaan aruuriya xaaraan waaye marka diyaari dhaqso waayahay mudane anaa u sheegaya ha ka walwalin walaalka diyaarinta biri janduur raja badanaa waa diyaar idhagayso hawada way xun tahay cimil ahaan marka in la baxa muhiim ya dadka magaalada mar labaad way aamineen xil kale ayay siiyeen marka waa inaad fikirtaa deynta faraha badanaad qaadanayare jagan bangaloor ma ka soo laabta xilli dambe ayuu imaaday saacaddan inuu hurda ayaa laga yaabaa waryaa jagan maxaa kugu dhaca maxaad u saaca weyday maya abbe hurday ma hayso maxaa dhacay abbe hurdada waad ka soo kacday 4 xitaa lama gaarin in ugu filan waa soo hurday wax miyaa rabtaa inaad ii sheegto abbe abbe wax miyaa rabtaa inaad ii sheegto horta galaas biyaa ii keen waa xilli dambe marka seexo wasiirka Andhra Pradesh
waayo saar ayaa la waayay goordhabeed ciidankana waxay baadigoob ugu jiraan si u soo heli lahaayeen waayo saar keymaha ayuu ku maqan yahay sidoo kale helikabtarkii la socotay waxaa laga yaabaa in meesha lagu waayay dadyo badan ayaa ka walwalsan arrintan familkiisa iyo xisbigu ka tirsanaana aad ay walaac u muujinayaan su-aasha isweydiinta badanaa waxay tahay waayo saar ma la heli doonaa boona soo waajaho waxaa loo baahan yahay inaan ka istaagno aanan marnaba u joojinin xisbigeennana wuxuu u baahan yahay hoggaan ad adag mar walbana garabkooda taagnaado wixii fikradana siiyo hoggaankaasna waa muhiim kama maaranno aniga ama qofka xildhibaan noqon karin wuxuu ka dhigay ra'iisul wasaare ama xildhibaan siyaasaddeenu noo furo asaga qof kastoo xil qaban karana wuxuu mudnaa ayuu siiyey haddaan rabna riyaduu lahaa asaga hore inaan u sii qaadno waa inaan u doornaa wiilkuu dhala asaga xilkan jagan mohan reddy waa in xilka loo magacaabaa adiga waad saxan tahay balse waxaad ogaataa ninkan 9 bilood oo keliya ayuu nala joogaa xisbiga qaabkee loogu dhiibi karaa dadka soo rafaadaya intaasoo sana aawe maxayna dareemi doonaan ii sheeg balmidda dhegeysa mudane runta haddii aan kuu sheega anaga ma arkino meeshaan dhiidhiilku ma aana imaanin xisbi ayaana soo saaray mideeda kale waxaad ogaataa annaga waxaa qasab ah haddiiba qof wax oo helaa ma arkino jagan reddy ninka la dhahayo waa inuu helaa markaas ma arkino wax walba waa la kala qaadanaa waa maxay xisbigan cusub yaaqay idinka miyaa xisbiga go'aan ka qaadanayo hal kumanti ayaa jiro mudane kumantigeena wuxuu yahay jagan mohan reddy anaga waan taageeraynaa ninkan ugu sareeya meesha ma ka soo horjeysanaysaan idinka haddiiba daacad idinka tahay oo niman rag tihiin warqadda soo saxiixa annaa marwadan si toos ugu geynaa waa haddaa middaas geesnimo u haysaan mudane dadka wajiyadooda fiiri cara ayaa ka muuqato middan haddii aad raalli keen aniga madaxayga u saxiix haddii kale annaga meeshan ayaan ku burbureynaa middaas la soco mudan adaan kula hadlayo waxba ha fikirin saxiix డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అలాంటి నాయకుడు waa wareeyey midaan aniga waan la yaabanahay fiiri ada shacabkan tirada badan siyaasi dhinta haddana tacsiidii sidaanoo kale looga soo qaybgal weligii hore uma arkin asaga sidii sultaankii oo kale ayuu u noolaay kadibna uu dhintay mudane waayasaar wiilkiisa ee jagan ayaa wax noqon doona si ay meega xigo 150 xildhibaan ayaa asiga taageertay warqadana waxaa loo diray delhi si warqadaas filcilin loogu soo odag inuu dhinto waan ku faraxsana laakiin ismadhay wiilkaa soo baxaya sida hadda aniga u jeeda CM asaga wuu noqonayaa hadduu u noqdana uu waxaad ogaataa annaga xisbigeen in ay u dhammaanayso oo meeshaas ay ugu ekaanayso laakiin waa inaan ka hor tagnaa jagan
باور كان ما باور كاس كالرا أستار ما أنا أدلي قراءة هتبه جاgan maya ani may raacis sheekadan mar kale xusuusanay waa sheeko ka waaweyn baawurkaas raac soco صباحنا كان ويلكيجي باور كاسان قادرينا aniga aabbayga weligeena hal gaari islama aanan raacin halkii mar aan raacayna wuxuu ahaa safarkiisii ugu dambeeyey waxaan rajaynaa dib noo soo laabto inaan bannaanka u raxayo gocsado weligiisii moodhiin anigana maana weydiin دقيش بقول لك كنتم حلبان هايش تاكور ملقيا إن حاح لقادو معنا نقول لك تعشوي ugu yaraan markaan 20 kursi waa helna aniga may uma baahni مثلا بدو شاه ما عبد يا اخي mudane hadda darbaad ma waxaad iga soo wadaa aniga halkan ii keentay shaah inay siiso kaliya maxaa dhahay midda kale waxa igu qasabtay 150 qofood warqadii saxiixan inaan soo qaado waana wadaa master mandu adiga waxaad tustay siyaasadda aan daraa anigana hadda siyaasadda daliya aan ku tuso iyo waliba sidaan u maamulo mudane 150 xildhibaan taageeradooda ayuu haystaa waayahay wax dhibaato ma leh ana fiirnay bukaado xir soo socodiga marwo andra bardish akhbar noogu imaaday ninka lagu magacaabay Jean Ready ay wuxuu sheeginaa gobolkaas Gordon wasiir inuu ka noqonayo intaas oo kaliya ma xitaa wuxuu sheegtay 150 cod inuu haysto qofka xildhibaanka noqonayo aniga oo kaliya ayaa dooranayo xildhibaana ayaana soo dooran karin jagan reedi ayaana iska dhigi karin reedi uu sheeg qofka aniga soo doorto taageerihiisa ha bilaabo waaya marwo arjun yes marwo taageero oo kaliya isaga lagama rabo qofka kursigaas fadhiisanayo waxaan ka rabaa afkiisa in uu ka shaaciyo isaga intaas oo kaliya ha sameeyo amarkaada jiro haddeertaan waxaan u magacaabayaa rooshiana inuu noqdo wasiirka andhra pradesh anigoo ku faraxsan
middaani macquul miya macquul maaha 150 codo haystaa ninkan haddana komaandigiisa u soo doro karna anaga ii sheeg bal 150 cod haysna banaanka joogna maxay ka dhigantay walaal kan waa xisbi bilow ah hoggaankana aad ayuu u amar adag yahay waa inaan sugnaa marwada amarkeeda laga dareemaya andara bardhesh kadib markii 150 cod isagoo haysta jagan reedi xilka loo diiday sidaan u maleynayeen jagan ma uusan naqanin wasiir రోసయ్యను ఆంధ్రప్రదేశ్ 15వ ముఖ్యమంత్రిగా నియమించింది jacaylkiina xishmadiina marnaba qalbiyadeena kama baxaayo rajays randi weligiina waan jeclaanaynaa mudaradeshwar qalbiyadeena iyo caddeynteena ayuu weligiis ku dhex noolaanayaa wuxuuna ka mid noqonayaa nolosheena inta cimrigiisa ka dhiman aniguna waxaan noqon doonaa mid idinkeena ka mid ah aabbayga dartiisa 666 qofood ayaan nolosheeda u horay aniguna waxaan la kulmayaa qof walbo oo aabbayga nafsadiisa u horay asagii familkiisaba mustaqbalka soo socda dhammaantoodna waan u tacsiiyey doonaa weliba anigoo ka qiiranaya waxaana ka codsan doonaa inay igu xasuustaan ayaga in aan la jiro oo aan wiilkooda ahay uun ahaan doonaa weligiis adiga xisbigan ayaa ka tirsan tahay xisbigaas kale inaad u tagto maxaa u taageertay ma ii sheegi kartaa middaas yaaqe dadkan maxaa u sheegi doonaa idhegeysa mudane dadkoo idil maarkino jagan ayay taageeroyin anna saan haddaa ku sii socdo waxaad ogaataa sharafteeda hoose u dhacay adi inaan kaa taga isaga xaggiisaan u badahaa marka waayahay dadka waaweyn ma waxaan inaa u sheegaa doonaysaa andara baradesh xaalad xun ayaa ka jirto amarow jagan maadaama aadan wasiir ka dhigin adiga wax bilaabay in koox kaloo siyaasadeed oo mucaarada inuu abaabulo oo weliba aniga kacdan oo nagu sameeyo maya marwe sidaa maahan adigu waad qaldan tahay arrintan siyaasad ma qusayso xisbiga uu sameeyeyna waa miduu ugu talagalay inuu dadka ugu tacsiyeeyo
markuu aabiis dhintay dad badan ayuu shoog ku dhacay marwo feelashan fiiriba adigoo raalli ah wuxuu leeyahay siyaasad kuma lug laha laakiinse xildhibaanada lookalka ka qayb qaadanaya ka waran sidee ku dhici kartaa tan ninkaas arrimihiisa mar hore ayaa loo baahnaa inaan ka wada hadalno weliba intaan fadhiisan waxaa loo baahnaa go'aan cad inaan ka qaadano balse haddan asagii ayaaba go'aan anaga naga qaata ka waran marwo sida ugu dhaqsiyaha badan isaga u sheeg in uu joojiyo waayah marwo markaaga jiro واني السلام واني السلام واكو سلام جاكر ريدي فضل أديكو راليا كرسي كان dib ma la waa fadhiyaa istaagale ku hadleenaya waxaan rabay arrin muhiim ah inaan kala hadlo oo waliba qaas ah adiga banaanka waa iska aadi kartaa okaadi mudane waxaa tahay martideeda asagana waa ciidankayga halkanoo la joogayaa waayahay jagar reedi haddaba aniga si fiican ii dhegayso fariin ayaan ku wadaa weliba waxaa lagaaga baahan yahay siyaasaddan aawad inaad joojiso mudane arrintan ma ahana mid siyaasad ee waxaan u samaynayaa aabbeega dartiis war aniga waxaas ha ii sheegin ayaan ku dhahay waxaan jooji ku dhahay waa inaad joojisaa biritolana waxaad ogaataa aniga delhi ayaan u socdaa jawaabaha aan kaa rabana isla biritole waa in aniga aan kaa helaa okay idhigayso looma baahna berita inaad isugto hadday dhegayso iskana bax ayagu waxaad u sheegtaa inaanan joojinayna siyaasaddaanu wado aniguna ballan ayaan qaaday ballanta aan qaadan lagama yaabo inaan ka baxo wax walboo la samaynayana ka fikir aniguna waxaan rabaa hore inaan u sii socdo micnaheeda ma aha wiilka YSR hadduu yahay maxkamadda inuu ka soo horjeesan karo annagana xisbigeena wuxuu samayn karaa boqolaal hoggaamiye haddaba u sheeg qadkeena hadduu soo geli waayo wuu ka shallayn doonaa cunugaas hay marwo anigaa ku qancinaayo waad mahadsan tahay jagan hay komaanka xaalad walba ayay u mari karaan arrintan waxaan ku dhihi lahaa jooji waxyaabahan aad wadid ma waxaad doonaysaa hadalladeeda dib inaan ugu laabto anigoo habsanaya maya jagan aniga kuma dhahayo dib u laabo ee waxaan ku leeyahay waa inaad dulqaad samaysaa walaal wuu saxan yahay jagan aabbahaan muddo badan ayuu xisbigan u soo shaqaynayay hal mar marwada haddaad la kulantidna waxaa laga yaabaa adiga inay wax walba kuu oggolaato marwo waan ku salaamay marwo maadaama aabbeegaan ballanka qaaday intaan aniga noo lahay booqashadaan oo wadayaa ee waxay siyaasad ku lug leedahay haba yaraatee ma jiraan marwo boqolaal qofood ayaa naftooda ku waayay ninkayga dhimashadiisa markay ay maqleen dadkaas markiinaa u soo tacsiyeyna soo maahanna waxaa dhahday oo dhan way saxan yihiin hal mid oo keliya samee mas-uuliyiinta xisbigeena ugu waaweyn oo dhan waxaa loo baahan yahay inaad iskugu yeerto meel walbana aad uga sheegto tacsidiisa laakiinse kaligaa booqasho ma samayn kartid oon kuu sheegay marwo markuu aabbeena dhintay gurigan intaad timeeda noo tacsiyeysay aniguna adiga kuumaana imaanin tanina waa dhaqankiina marka adigana isku day inaad fahanto taas aniga wax iga quseeya ma lahaa keliya waxa aan ku dhahay waa inaad samaysaa haddii kaleeto wax iga galay ma laha wax walbo adiga maanta aad ku dhaqaaqaysid marwo waan ku baryaa ninkayga dhimashadiisa stress ayuu ka qaaday waan ku baryaa nafasax oo go'aanka ugu dambeeya na sii codsi ayay naga tahay middaas annaga haddaba go'aankayga ugu dambeeya waa maqasheen hadal walba aan isdhihi lahayn waan isdhahnay waana iska bixi kartaan
marwo maskaxdaada ku hay dhaga hadalka haddaad igu samaysay ilaah baa markhaati ka ah maalintaana ilaah baa ka markhaati ah hooyo aniga qoftaan way igaga dhammaatay hadduu hadalkuu dhiman yahay dhaqsoo la hadal inaan dhaafo amaba inqaab inaan maro maxaa rabtaa inaad samaysid jagan wax kaloon ka fikiray imaba harin aabahaygan waxaan ka bartay ballantiisa inuu ku adkaado dibna uusan oo laaban anigoo wiilkiisa ah haddii aan ballantiisa jibiyana wax micnaha ma samaynaysa haddii xitaa mustaqbalkan ku guulaysto walaal jooji gaariga maxaa dhaca walaal xilligan waa xilli dambe adigna halkan maxaad ka qabanaysaa walaalka aniga wax ma arki karo habeen iyo maalin wax farqi ay sameeyhiisana ma jirto macna aftii ma arko oo hadda waxba ma arkaysi soo ma waayo halkan maxaad ka qabanaysaa YSR wiilkiisi soo socda asaas darteeda meeshan u fadhiya aniga micnaha waxaan ka wadaa wiilka YSR hadduu hortaada soo istaago adiga ma arki kartid soo ma haddii aniga usaan arki karin markin usul laakiin waa arki karaa maadaama usaasi arki karane waxaan dhihi karaa dadka ana camal inuu usaga ay taageero ana camal leh macnaha kuwa camoolayaasha ah walaalka warkaa waa u batay yaa taada ii sheeg YSR wiilkiisaan ahay walaalkaa sug wiilkaaga imaadaya fiiri dhegeyso waqti fiicana imaade ilaa ii suuxiyo joogla laakiin dhaqsiga maxaa umaadini walaal adigu waxba ma aragtid adigu ayuu culays ku saaran yahay siyaasadda maxaa ka rabtaana fiiri dhegeyso ani siyaasadda horta wax ma ka kasaay laakiin adiga wiilka dhan oo YSR ka tahay marka hogaamiye inaanu naqatidaan raba codsiga iyo aqbal waa ku tuugaya fiiri dhegeyso walaalka miima khalosa intee joogtaa bidix mis midig walaalka miima khalosid miyaani ya akhi walaalka waan ku maqlaa walaal hortaadan taaganaa walaalka intaasaa igu filan aniga garabkayga maadaamaad unoqoysa aniga soddon sano ayuun aabbaha kala shaqaynayay siyaasadda jagan adiga aqoon uma lihid siyaasaddanni dhibaatada ay leedahay xisbiyada dadka hoggaanka u hayana haddii aad ka hor timaado way kaa cadgoosanayaan kuma dhaafayaan dhibaataad gelaysaa
caano mise kafee kee baad doonaysaa waxaan ku dhihi lahaa isilaali mar walba taxadirkaaga ha badnaado waa iga talo walaal aniga waxba igama gelin taariikhda haddii lii xasuustay haddii kaleba balse hadday dhacdana ugu yaraan han lee aqoonsada wiilka aabbihiisa ballantu ka qaaday oo aan marnaba iloobin intaas haddii laygu xasuusta xitaa way igu filan tahay jagan dadka way ku taageeraan gacanta markaad kor u taagtana way kuu sacbiyaan ma waxay kula tahay jaceylay kuu qabaan inay arrintan kuugu samaynayaan maya waa gacanta weyn ee adiga kaa dambaysa gacantaas weyn oo kaa dambaysana haddii aysan jiri lahayn aniga adiga iyo aabbahaaba waxba ma nihin taas maskaxda ku hay mar walba haddii aadan taas haysaninna aabbaha siyaasadda dib uguma soo dhalanayo ogow hadduu doono dagaal siyaasadeed ha dhaco amaba ha laysku dulbaaboo laakiin nolosheeda aniga waxaan ka mas-uulahay waa laba shay midda koowaad waa aabbahayga oo yidhi ilamargaamkan waa inaad sii waddaa idinkuna waad ku mahadsan tihiin maadaamaad ka dhigantahay muddo 30 sano aabbahayga hoggaamiye oo weliba qalbiyadiinna inaad ku haysateen markii aan maqlay dhimashada aabbahaygana waxaan go'aansaday guri walboo kiina inaan soo tacsiiyo iyo dadka idinka dhintay oo ahaa dadka idinka aad jecladeen laakiin waxay noqotay amar in la qaato waxayna iga codsadeen inaan joojiyo tan markii ay imaatay laakiin maadaama
aabbeeyga aan ballan ka qaaday lagamiyaha dib inaan u laabto anigoo ah wiilka ysr ma waxaad rabtay hadalkii inaan la laabto kadibna dalhi aan warqad u qoro idinka taas miigu racsantihiinna mise waxaad rabtiin inaan soo jeesto oo aan dagaalanno walaal wax walba hadday dhacaan oo nala baabi'iya xataa waxaan kaa rabaa go'aan kaa qaadatay marnaba inaadan ka laaban adiga walaalka si fiican ii dhegayso dadkaas ninka ugu sarreeya taageera ka helooyin annagana wax walba aan samaynayna aabbaha dartiisa u samaynayna haddana adna waa kuu taagannahay inkaan boyakayaashka shaddan sano ciidka maya aniga ma yeelin waa baabi'inaynaa kuya dhulkii waa tujayaynaa ma isjiyayaayo anigii hooyaday waxaan iska casilaynaa boosaskan ka joogna MB-ga iyo MLA-ga iscasilid oo keliya ma ahan ee waxaan xariga ka jiraynaa xisbiga horumarinta afartan xildhibaana waxay taagan yihiin aabba ayaa ku guulaystay kadibaa 35 sano ka hor bargorob darteeda taasna waa been maxaa yeele annagoo dhan baa runtoona ognahay doorasho soo socoto ayaa wax walba caddaan doonaan wax walbana meeshaa lagu arki doonaa nooga baxo waa inuu guuldaraystaa naf iyo maalba waan u hurayna aniga muhiimadeena waa inuu guuldaraystaa mideeda kale waxaan rabaa xisbigan horumarinta qof walba oo kor yimaado tanoo kale inay tusaale u noqoto noloshiisana ay burburtaa riboodka waxaa ku qoran dadkoo dhan inay jagan taageerayaan hadda annaga maxaan samaynaana dadkoo dhanna jagan ay ku jiraan hal mid kaliya weydiiyey xisbigaas inaan taageer ka helna rabnaa mudana 30 sano ayaan waxaan ku jirnaa annaga xisbi inaan daba soconno xisbigana wax badan ayaan ku weynay familkeena ayaan ku weynay dadka noo dhow ayaan ku weynay hadda waxaa la rabaa dadkan in aan ka hortagno qaabka looga hortagi lahayna adaan ku weydiinaya maxaan ka samaynaa aniga kuma dhihin xiriir la yeelo siyaasadda inaad isticmaashaa loo baahan yahay weliba siyaasadda nuuca casriga wax walbaba ha kuu qaadato waa in aad siyaasad casriya aad isticmaashaa si fiican ii dhegaysta asxaabay ninkaasi wuu nagu adag yahay maxaa yeele waxaan fir ayay ka soo bilaabatay awoowaha ayaan run ahaantii annaga ka soo badi weynay aabbihii asiga dhala xitaa waan ka soo badi weynay haddeertaanna arrinta master reedi hadda koor xaaladda asigoo ku xun ninka garabka sii waa adiga annagana waxaan rabnaa haddeertaan garab buuxo in aan na siiso si ninkaasi aan uga hor tagno mohan reedi ayaa taariikh ka dhigay kadib markii uu ku guulaystay doorashadii ka dhacaysay gadaba xisbigii ka soo horjeedeen wuxuu ugu guulaystay codad gaaraya ilaa iyo 5 leeg waxaan la yaabanaa intaas oo xisbi annagoo ah ninkan hadda soo baxay sidee nooga guulaystay dadka annaga xisbigeena ka mid ah hogaami siyaasadeed sida loo samaysto ma yaqaanaan نفتين وفيعنا أني وأقول لسني قربتين تبوعس هذه وراك يا أخي قول أقول ليش أقول وعي يا أخي قول أسرع جدا يا شكل وراك قلبي
anigoo ku bilaaba ixtiraamkan aabbeey ugu haayo iyo kalsoonidaad igu qabtiin dadka deganka dhabbaa waxaad isiiseen kalsooni aad u badan waana idinkaga mahadcelinaa si loogu guulaysto hal qofood xisbigeenna horumarinta iyo xisbiga talaguul adhow waxa ay sameeyeen waxyaabihii wasaqda ahaa balse annaga ayaa ka badinay jawaab culusna waa aan siinay waxay leeyihiin jagan wuxuu gadhabbaa ugu guulaystay waxay tahay waa meel aad u fudud in lagu guulaysto laakiin ayagoo dhanba mid baan u sheegayaa isbeddelkaba kadhibbaa ayuu ka bilowday tallaabada koowaad waxay ka bilaabanaysaa balabiidda dhowla xisbigan wuxuu dhisan yahay muddo 125 sano ah xarumaha dawladoo dhan awood ayaan ku leenahay dhanka lacagta haddii la dhaho iyo wax walbeeto annaga ayaa leh laakiin xisbigeenna wuu ka guulaysan waaya jagan reediye wax walboon samaynay isaga haddaanba ka guulaysan karin annaga dhegeyso aniga hadalkayga qaado mar haddii gudaha aan galna ma arkino lamaba rabo mowqifkeen inuu isbedelo hadalkayga inaa fahantaa rajeynaa ukaadi maxaa jira yaa war annaga meeshan inaan tikid goosano uma imaan waxaan rabnaa xisbiga in aan iska casilno asagana waan la kulmaynaa cid naga hor imaan kartana mala xisbigana waan iska casilayna naga lexda mudane meeshan waxaan u maanay xisbiga inaan iska casilno warqadan iscasilaada ma arkino adiga la taliyaaga ayaan annaga farta ka saarna halkan inaa kasii mid ahanana maahan waryaada idinkama soo waalateen maxaan ii helayaaqe xisbigan oo muddo 25 sano ah taagan miyaa ka soo horjeedsataa tartanka bixis nii sheegayaaqe waa yaaba siyaasadda ma soo waalatee mar kaleeto ka fikira aniga waxaan ka fikirayna malaha go'aankeenna waan soo gaarnay wax walbana isku dhammaadeen hey xisbiga midiin ogolaan doono mar kale inaad dib u soo laabataan haddaba ogaada waraab bax naga tag macsalaamanyo waa sida hadalka loo dhigay soo laabasho ma jirto hal mar haddii aad baxdaan waa sida aad u baxdeen iga hor dhaqaaqaad yartaan socda saaxiibo waa isku dhammaataan ku dheh kala wareeg idinkarna keena maxaa tiri amaru 18 xildhibaan oo xisbigana ka tirsan ayaan aga goosatay jagan ayaan u goosteen annaga waa isnay jagan ninka la yidhaahdo waxaan isdhahayna waa nin daciifa laakiin waa khatar waa nin maskax badan adiga sidee sidaas ugu ammaanin kartaana aniga asiga ma ammaanayo siyaasadda oo ku dhaqmay ayaan ammaanayaa sababtoo ah asiga fiiri hadduu daciif uu yahay xisbiga 80 xildhibaan ayuu ka soo burin lahaa laakiin sidaa ma uuna samayn waa u seexseexday 15 xildhibaan bis ayuu ka soo buriyey si doorashada oo macnaha kab oo ugu helo marka ninkaasi siyaasaddiisu innaba caadi maaha sida wararka aan ku soo xignayna waxaa la sheegayaa 18 cod ka badan inay xisbiga jagan ay ku tashanooyeen waa warbixinta saa ku soo xignay warbixinta soo bixi doonta ayaa waxay walwal ku ridi doontaa xisbiga TMB iyo xisbiga horumarinta amaru andar bardish een aqbaar xun kaaga haya waxay la tahay 18 kursi ee halkaas taalo hal kursi oo kamid ah xataa xilliga doorashada anaga inaan heli doonin andar bardish adiga ayaa mas'uulka ah wax faahfaahin ma nooga haysaa hadal balan ku dhageystay marwo
way fududahay qof aan wax haysanin inaad weerarto ama way fududahay mararka qaar qof wax haysta inaad weerarto jaganna haddii aan arrintiisa kuu sheego waa nin wax walba haysta haddana wuxuu diyaar u yahay inuu wax walba waayo isaga shacab badan ayuu haystaa inaad weerartana way adag tahay haddii aad weerartana waa sidii bamba rabta inay isqarxiso oo kale waa xaqiiq isaga wuu dhimanayaa laakiin annagana hore ayuu noo salfanayaa taasi ka fikir maya marow annaga madaxa haddii aan hoos aadina waxaad ogaataa sida jakan oo kaleeto annaga hadhow hogaamiyaal kale ayaa nugu diganaya midaasna mid loo dulqaadan karo haba yaraatee maaha anaga waxaan la xiriirinay xisbiga naga soo jeedo qorshe fiican runtii waan degnay bas amarkaaga oo kaliya aan sugaynaa mudana haddii annaga aan go'aan qaadan lahayn meeshaan wax badan ayaa isku qasan anigana uma malaynaynin mar walbana waxaa iga dhaadhacsanaa xisbigaas in uu naga soo horjeedo laakiin hadda wax walba ii cadiyeen qof saddexaad ayaa annaga dhexdeena ka soo baxay siyaasaddii oo dhanna kor ayuu u qaaday hadda qofkaas ayaa loo baahan yahay annaga in aan istaajinno ninkaasi waa dhaxalka aabbihiisa maadaama uu dhintay naxariista oo ka helaayana labadaas awood ayuu isku haystaa annagana qof asigoo kale waa inaan helnaa si aan asiga uga hor tagno wax kale maa hadda waa inaad isticmaashaan hubka la dhaho musuqmaasuq war degdega siyaasadda maalinba maalinta ka dambaysa way ka sii daraysaa xisbiga TMB ayaa waxay ka hor imaadeen xisbiga kale ee mucaarad ku ahaa ninkii jagan ahaana waxaa lagu soo qabtay musuqmaasuq ah lacagta aabiis inuu isticmaalo weliba hallag laakiin jagan wuxuu caddeeyey arrintaasoo dhan inay been tahay asagana ololihiis hore ayuu u sii watay oo uma joojin xisbiga jagan baaritaan ayaa ku socdo ilaa hadda laakiinse wax caddeyn laguma soo saarin 5 warqadood ayaa CBI-da loo geeyey laakiin ilaa hadda wax caddeynin waran ka soo baxay hal laag oo karoor lacag yar maaha lacagtaasna maxkamaddu way ka warqabtaa maxkamadda dacwo ayaa laga geeyey magaaladoona ku soo daayay qof musuqmaasuq intaas lee ku dhaqmaana annaga dacwo ayaan ku soo ogaynaa markii ugu horreysay maxkamadda ayaa waxay ku soo xukuntay CBI jagan baaritaan inay ku samayso CBI-na jagan 10 kiis ayay ku soo furtay maalinta ka dambaysa kiiska jagan uu cusub ayuu yeelanayaa sidoo kale jagan wuxuu joojiyey kaambeenadii uu doorashada ku galayay hadda wuxuu tagay xafiiska CBI-da ee dalkuusha ku yaalo bal aan aragna wixii ka soo baxa బ్రేకింగ్ న్యూస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ను అరెస్టు చేసి అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారని వైఎస్ఆర్సీపీ శ్రేణులు కార్యకర్తలు గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర ఆగ్రహ జ్వాలలు నెలకొన్నాయి hogaamiye jagan radiyay in la xiray weliba xabsiga lagu xirayna waa janjal gudhaa sida CBI-da warbixintooda ku qoran
adigana mahadsanid mudane mudane haw waa mahadsan tahay waayahay asxaabtahay hala baashaalo hambali waa guulaysana jees halow tali jagan u tag xabsiga gudihiisa wuxuu ka sameynaya iise ogaamo tali waan ku fahmay haye ii sheeg mudane ninku siduu gabankii oo kale u jiifaa afar iyo labaatan saac waxaan ka rabaa ninkaas indhaha inaad ku hayso sharciga hadduu ku xadgudbana awooddeena waa inaad tusta asaga mudane arrinkaana xalli gebi ahaantaana ugu daa kolley waan hubaa reer lacag le ayuu ka soo jeedaa magac iyo dalacna waa lagu soo koriyey laakiinse waxaan la yaabanaa ninkaas kulaalkaas iyo kanaacadaas sidoo ku dhex jiifaa jagan reediyo wuxuu ka soo jeedaa kadhabaa dadka kadhabaa degganna kuleelkii dhibaatada wayba la qabsadeen waxayna awood u leeyihiin wax walba inay la qabsadaan isagana ayagoo ka mid yahay anaga damaanadda way nugu adkeeyeen xitaa akoomadeenna ayay u dhiceen ay baaritaan ku samaynayaan bilbabisha ka dambayso sheeko cusub ay la soo baxayaan ganacsigeenna way u dhaadhaceen annaga waxaan samayn karna ma laha jagan xaaladda aaday nugu xuntaa dadkaan awooday leeyihiin kama hortegi karno wixii dhici raba hadeertan way dhaceen mana naqaana annaga waxyaabaha kale oo weyn doonno ninka keliya guriga jooga hadeertan jagan adiga waay saan kuu badbaadi lahaa ayaan ka walwalsanahay aniga aabbahin ayaan weynin waa waxay ugu qiib badnaa gurigeenna maxaa kaloo noo harsanaa way doonnaa hooyo hadeertaan xilli fiicanna murugteenaan ka hadli karno iyo xanuunkeen intaba ma aan 18 xildhibaan ayaa shaqadooda ka soo casashay iyagoo annagana aaminsan waa annaga shaqadeenna guushana iyaga inay raacdo dhammaantiin aniga waa idin salaamay iyagu waxay u malayaan jagan xabsiga haddii la dhigo xisbigeen inuu burburaayo laakiinse waxaan u taaganahay xisbiga aniga inaan sii hogaamiyo oo xilka aan sii haayo maadaama idinka taageero noo tihiin marwa ninkii guriga jooga waa la xiray adigana kiis ayaa ka yaalla maxkamadda familkanna qaybta gabdhaha maxkamadda howlahooda maysan gelin afaarihiis maxaa dhacay marka say waxu jiraan waa runtaa walaal gurigeenna dumarka jooga ganacsigii siyaasadda culays kuma saarna laakiinse anaga waxaan ognahay dhibaato walboona qabsata inaan ka soo kabanayno oo dib u soo laabanayno maro sidee ku dhici kartaa midaas okay aniga xalinaya waxaan u baahannahay FDL bilkeeda si saddexood aad ugu shubno mudana ready jagan ready wuxuu haystaa laba cod asaga maxaad u qanci laadayna uma malaynayo isaga inuuna taageerayo mudana reedi xabsiga intuu ku jiro ilaa iyo hadda waxaa laga joogaa 11 bilood laga yaabo haddii inuu qaboobay waxaa laga yaabaa xitaa waqti xaadirkan inuu noo baahan yahay oo weliba annagana taageerayo jagan reedi ilaa carruurnimadiisa ayaan aqoon u leeyahay wuu madax adag yahay isaga
isaga keliya ma ahan reer kabadha oo dhan haddii ay isku dayaan inay kaa cadgoostaan waa dad madax adag go'aankoodana aan ka tanaasulayn si markii loo fiiriyo way wanaagsan yihiin dhanka kale markii loo fiiriyana waa dad aad u xun waayo cadowgoodu marka hadday ay go'aan ka qaataan lagama yaabo inay dib uga laabtaan iyagoo og inay ku baaba'ayaan xitaa madaxooda hoos ma aadinayaan way ku dhiman karaan odareedii i dhegayso si walboo kataba waa soo jeeda asaga kolley waa siyaasi annagoo kalaa mar walbo marka adiga canugaas la hadal wax ka dhaadhici ballanqaad weyn u sameey oo weliba weligiis oosan arkin markaas waxaa laga yaabaa asaga in annaga uuna taageero waan isku dayaa mudane jagan xisbiga adiga ayay kuu baahan yihiin waxay rabaan inaad caawiso haddii arrintan aad ka caawisana arrinta damaanadda ah aniga ayaa kuu dhammaynayo halkaanna waad ka baxaysaa idhegaysa aniga madax adeegiska daa ha samaynin go'aamadan adag walaal kuma jira xaladan kufee iyo caana aan kugu soo bandhigo adigoo kulul ayaa soo gashay biyo cab kadib iska bax imaqal jagan halo inuuna taageero canugu xumama ogolaaday saaxiibka reerka tabaawili ma uusan qaboobin bisadda haddii aad kaymaha uga soo tagto sideeda ayay ahaanaysaa shabeelka haddii aad god ku soo xirtana isma beddelaayo sidiisa ayuu ahaanayaa باوركينا يقنعتكينا ولا وريقين هذا ما بقي يسدمي أنا ما حد عنا يرسميني ودن إلا لا وريقتي حتى وحنا وقع بصناعي هدي أنا وحول بواي حتى تولدين أي أبقول إنه ورسي أنا جنا يجا وح أنتها كمان ربو واحد دولار حسن ميان وشيء بروجرس wuxuu cabsi weyn ka qabaa Andhra Pradesh kadib markii Jagan uu weerar ku qaaday TMB iyo waliba 18 kursi xabsiga horumarinta qof uu guuleystay haba yaraatee malaha doorashada ay hadirtan bilaaban rabto oo waliba AB saddexda qof ee doorashada u tartami doonto ee hogaamiyaasha ayaa waxay bilaabeen ololahooda qof walbana magaalka ay ku jira codriyaad mudane waxaad ogaataa anaga sirfi in aan xareynay natiijada ka soo bixi doontana codka 50 ilaa 60 waay waa haddii anaga ilbaab walba inaan tagna aan garaacno waan huba aniga ayaan ku yiri inaan guuleysanayo
sababtoo ah 40 sano ayaa siyaasad soo baandhaynaya anug yar oo 40 sano aanan gaarin sidee aniga iga guulaysan karaa anigoo 40 sano siyaasad kaliya baandhaynaya siyaasaddu maaha nanna intaad dukaan ka soo qaadato aad dhuuqaysid maskax iyo juhdi badan ayay u baahan tahay waana ka guulaysanaya jagan natiijooyinka oo dhan dhankeena ayay jiraan ugu dambeyn annaga ayaa guulaysanayno soo fariisa bal walaal annaga waxaan la tartamaynaa jandar baabuu annaga haddii aan asaga yasna waxaad ogaataa in ay noo tahay doqonnimo mudane wax walba annaga aan samayno waxaad ogaataa jagan taageero badan inuu haysto dad cusub annaga kalsooni kama helayna mudane guushaan waa inaan wax ka samaynaa annaga dadweynuhu dhegaysta aniga doorashadan haddaad ii codaysaan waxaad ogaanaysaan in qof walbaba gurigiisii oo xur oo u noqonayo wax walbaad u baahantiin waan idin siinaya ma u malaynaysaa dadka adiga in ay ku aaminayaan dadkan waa dad dhinta raja ku nool waa وانا وبا عدك وكيلين كي بابو اي عسلويا مكسي لعقت دينت انا ني بخيا ان لا تاغير اي كو امننا كو دوار لا واي مع ور لا وجيدا بتالس دستي لعق بدن دكسيو والتميا خوف كان كنت قالي دون waa midaas si walba aad jandar baabu shalay wuxuu sheegay asaga dadka beerleyda lacagaha deemaa lagu leeyahay inuu ka bixin doono shacabkana way ku farxeen arintaas mudana jagan beerleyda annaga hadda deenta ma ka bixina beerleyda maaha wax sidaas u fudud maya xisbiga annaga naga soo horjeeda sidaas ayay dhahayaan ayaga waxay rabaan beerleyda ayaga inay nagala wareegaan weliba ayaga deenta inay ka bixiyaan mudane riskigaas mar kale ha qaadanayaan ku dhihi lahaa waayahay walaal mudana dawladda annaga canshuurta way nagu kordhisay xataa waxay noogu dareen dhibaateen oo joogto ah sidaa darteed annaga beeraleyda ma sii wadi karno ee maxaan samaynaa mudane si sharciyan haddaan u sharciga IB-na markaan ka hadalno mudane annaga bangiga lacagtiisa uma celin karno sababtoo ah ma awoodno macnahooda annaga nooma siin nidaam dawlad iyo dayn la kala qaadanayo soo maaha si khiyaano ayay noo siiyeen waa fahmay dhib ma laha waa siinaynaa u sheeg waayah mudane jagan waan kula dardaarmayaa adiga waxaad qaadanaysaa hadalkayga iyo ficilkayga aniga ama jaga dawla ha noqoto ama ficil kale ha noqoto marnaba ma ka noqdo adigana markaad weynaato waxaa loo baahan yahay wax walbaad go'aansatid in aadna ka laaban walaal annaga beerleyda been uma sheegi karno haddii ay sidaas tahay jagan annaga ma guulaysanayno maya walaal keliya siyaasadda aabbaheena ma ahan qiimihiisna waa inaan halkan dhaxlahaan u qaataa ma xuma inaan doorashada ku guulaysto laakiin ma raba shacabkayga been inaan u ballan qaado si aan ugu guulaysto dadka naga soo horjeedo taasna annaga sharafteena ayaa ku dhexayso maalintaan sumcaddayna weynay waa maalintaan aabbis weynay marka ma rabo deenta beerleyda in la bixiyo macquul maaha balse maadaama ninkan uu leeyahay anigaan bixinaayo ballanqaadyaduu samaynaa o dhan dhammaan waa been hadalkiisuna idinka ha aaminina doorashada haddeertan way bilaabatay weliba tirada ayaa socota waxaana hogaaminaya xisbiga talaguuna dhow meel walbana waa laga soo xisaabiyey ilaa iyo hadda waa lis hayaa talaguuna dhow ayaa dhibcaha doorashada hogaaminaya YCB-na sidoo kale way ku soo xigtaa oo la soo tartamaysaa war degdeg ah doorashada waxaa ku guulaystay xisbiga talaguuna dhow 2014 YCB-na waxaa lagu guulaystay hal dhibic oo keliya
dadkii anaga nala jiray waa naga tageen waxay rabeenna ma aysan helin siyaasaddana waana ka guulaystay haddeer marka adiga haddeer maxaad ku faraxsan tahay waa sax hadalkiina anaga waa aan guuldaraysanay laakiin waxaa guulaystay anaga saaxiibkeen jagan reedin wuu guuldaraystay isagani mudane adugu jantar baabuur ninka la oranaya miyaad ka soo horjeesan mudane waxay rabtay wasiir inaan noqoto laakiin waa guuldaraystay maxaa ka leedahay maxaa tahay guuldarada haddii aan noqon waayo wasiir waxaa ku guulaystay doorashada hogaamiyaha oo xisbiga naga soo horjeeda doorashada ugu horeysa waxaan ku guulaysanay 67 xildhibaan iyo weliba 9 baarlamaan marka guusha qof bay dhinaciisa haataa hadda wuxuu ku faraxsan yahay hogaamiyihii ka soo horjeeda kursigiisa in uu ku guulaystay balse garoonkaa yimaado anaa tusaya waxa ay siyaasaddu ay tahay baarti murugada ilaa goormay ku haynaysaa natiijada weligeed isma beddelayso haddii aad murugaysantaa xitaa adiga 4 sano dhibaato u soo maraysa jagan maalin walbana waa u lugaynaysay yaa qayo adiga waxaad leedahay 4 sano ayaad socotay oo keliya anigana inta cimrigaygu ka dhiman yahay diyaar baan u ahay inaan ku qaato 2 sax haddii aan jiifto way iga badan tahay waxaa dhahday 2 saac oo kastaraan sii seexanayaa hadda maxaa dhaqso u soo kacday qofkii guulaysta ayaa jiifan karo laakiin mid kale waa inuu guulaysto ma jiifanaayo waxay ahaataba maxaad soo kacday shax muxuu keenaa subax wanaagsan mudane subax wanaagsan mudane 2 saac kastara inaad iska jiifatid ayay ahayd maadaama annaga aan guulaysanay maxaa u soo jeedaa mudane maadaama aan guulaysannay haddii jiifkaan dheeraysan waxaa laga yaabaa hurdadu ay nala tagto kadibna uu soo kaco 2 saac ka hor intaan annaga aana soo kicin midkii annaga nala tartamaya wuxuuna ogaanaa qaabka noogala guulaysanaa waan idin salaamay xildhibaanada dhammaan waan idin wada salaamayaa iyo guddoomiyaha baarlamaanka annaga waxaan nahay xisbiga guulaystay maadaama aan guulaysannana waxaan jeclaan lahaa in noola hambaliyeeyo waa mahadsantihiin intaas ayaan codsanaynaa mudan afeen iyo golo inaan hadlo asagoo haysta xisbiyada waddanka ka jira oo dhan balama beenno waa uu qaaday wuxuu iga badiyay 1% oo keliya sidee aataba asagaa guulaystay anagoo dhanna si qalbiina wasiirkeenna aan ugu hambalyeeno hambalyo annagu mar walba taageeraheenna waad heli doontaa waa haddii aad oofinaysid ballamada oo aad ka qaadday annaga shacabkeenna haddii kalena mooshinno ayaan kaa keeni doonnaa adigana waan kaa soo horjeesanaynaa bal fiiri xisbiyadii oo dhan anigoo soo aruuriyay ayaan hal dhibic aan uga guulaystay sidaas ayuu asiga macnaha la soo taagan yahay marka waxaan u dabaaldegi kara ma taa middaasi waa guul daciifa weliba asiga wuxuu ku guulaystay hoggaamiyaha xisbiga marka ani maxaa natiijadaas anugu dabaaldegaa basas ayaa lagu soo qaadayaa dadka u dhaqdhaqaaqaya xisbiga jagan oo weliba doorashada ka qayb gali rabay sida
sidoo kaleeto jandaraa baabuu ayaa arrintan ka dambeeyo oo wuxuu samaynayaa dadka ayuu garaacayaa waddooyinka dhexdooda asagoona cidna ka gambanaynin waxaan ku weydiiyaa adoo xisbigiin halaan aad lagu leeyahay weliba kiiskan dhan dushaas u saaran yahay si oga mid noqotan ii sheeg saamay siyaasi ku tahay adiga hal midaan kuu sheegaa si fiican ii dhegeyso haddii xisbigan aad beddelatid maaragtay arrinkan dhan waa la xaliyaa kiiskanna waa la wareejiyaa wax walbana mister baabuu waa qabaaye go'aankaaga sii shaarba waaye makiis ayaad nagu soo oogaysaa ku soco waaye oo maxaad sugaysaa ixir waaye jalkii geey war aniga handadaadaad igu haysa xitaa haddii qoorta laga jaraayo marnaba isma dhiibaayo waxaad ka badi weysa samee ka warran duqa magaalada haddaan kaa dhigo حالة فريستة دمانتين فريستة هذا المغلى فريستة هذا فريستة sida ariga suuq laga soo iibsado kale xildhibaanadeena ayuu lacagtiisa musuqmaasuq ku iibsaday taasi waa siyaasad noocee ah mudane weligiina ha yeelina fariista bes adinka fariista anaa war ugu filane wiilyow aniga horta sidaydaba dab ayaan ka samaysanahay adigana busteeki ayaa taa bal adiga iyo aabbaha waxaad samaydeen adinkoo oo mar walbaba maxkamad iyo dacwo ka soo hor muuqda ayaad aniga ila faactirsanayeen isdejiye fadlan fariist isdejiye tartiib isdejiye sheekada sidaan kaaga harimayno haddii aad xaniin leedahay xildhibaanada annaga naga xogtay warqadooda casilaada sii kadibna adiga awooddaada la soo bax baan aragnay awoodaa ka hadlay miya xildhibaanada wax u qaadi naga aamus ayaan ku dhahay waxaad hoggaamin karta haba yaraatee ma lahan ninkan xilka u hayo hadda waa inuu iska casila asiga 23 xildhibaan ayaa xisbigan ku soo biiray weliba asiga ayaa ka tirsanaa xisbigiisa mar walba annaga waxaan ka tala jirnay CM asiga inuu noqdo balse waxa uu noqonaa haba yaraatee ma laha CM ninkan مدني بدبادو كبرية ولا سعدا أنيجا رجداري إنك دبك كوخبته العين أتاي كلي وحن كهربا مارتي أرين كان جعنا كدمبي إنا دهدت كدي بلعتنا خادسة ودن كانوا كشبابي مدن أنيجا بلنا يا كقاضي مرنا وجعنا نكسر جسنين تاوا كوبلنا يا أخي مدني mala socotaa siyaasadda waxa loogu talagalay dadka taajiriinta inay daba kacaan adiga hadda maxaa ku galiyana hadii wax ku soo gaaraan adiga iyaa ku badbaadinaa ii sheeg bal siyaasadda wax laga faa'iidayo ma lahan maxaa yeelay anaka dhibaataba ku jirnaa maano waasi ruuxu asaga siyaasi
caawinaad isagu nacaawiyo aabbuu caawiyay ayuu 10 sano aabbahay u sii noolaa gabadheeda mudane waxaan ku salaani وهوك سلام مدن walal waa kaa qaada soo gal soo dhow fadlan soo gal walal aniga waan soo ogaaday waxa dhacay sidee u dhaceen booliska xitaa kiis been ayuu kuu saariyey si adiga ay ku inqaabaan adiguna cadaaladda ayaa dooratay iska fariiso sureesh midaan xasuuso kuwa maanta adiga ku garaacay maalin bay salaan kuu saari doonaan waan is arki doonnaa waan sii baxanigana walaal xoogaha ma ku salaami karaan aniga waa caadi maxaa dhacni biniaadan aa haysaa ay mahadsanid فريستا يا خاي استجي فريستا استجي وايدن بريانا فريستا استجي markaan ka hadlaa arrimaha beeraleyda oo ay dowladdana shuruucii qaynuun ay u dejisay maygayga waa daminaysaa waxaan aaminay jantar baabuur dhankiisa inaad jirtid sidaasoo kalena caada qaataa taadi warnayaa aamusa adinka maxaad la qelqeelaysiin dad waaweynaatiini wiilyow yar mid ma kuu sheegaa meeshaani waa baarlamaan aniga ayaa hoggaamiye u ah meeshaan ma aha beertii ku tiillay goofidiin meeshaan buuq haddaad ku samaydo ama qaabdarro wax kalaad arkeen iska fariista استجي فريستا وايدن بريانا فريستا استجي baarlamaanka maxaan ka ahay haddii aan u dadaali karin dadka shacabka mise aan xaqooda ugu doodi karin xilkaan ahayna muxuu ku tooran yahay annaga haddeertaan waan banaanbaxaynaa waana ka soo horjeesanaa anug yaroo aanan nuuga ayaa tahay adeer hurdaa kuu dhiman siyaasaddu maaha in layska qaylqayliyo oo la carcararo bal fiiri labadan xisbi waa ruugcaddaa adii canug yaroo daraad soo baxa ayaa tahay dabeecadda ma haysid aad dadka aad ku dhegaysato see xisbi aad u maamulaysaa marka wiilyow siyaasadda markaa soo barata dad ku soo laabo ha u malayna cabsi adiga aan kaa qabno inaan annagoo dhanba baarlamaanka aan bannaanka kaga aadi doonno aniga kulley ma aqaan waxaad cabsan tahay balse waxay dhataa siyaasaddeed inaadan fahmin iyo weliba qaabkan aniga u shaqeeyo laakiin hal mid maskaxda ku haay waxaan ahay wiilka ys rajeys redhi wiilkayga maxaa dhacay waxbana hooyo mar walbo tallaabana hore u qaado 10 tallaabo ayaa haddana dib lay soo celiyaa fiicnaan leedaha abeegin u noolaa lahay hadduu noolaan lahaa dhib walba waan ka horteegi lahaa wax walbana waan u dulqaadan lahaa laga yaabee fisikaal ahaan haddeerta asiga intaynuuna u joogin laakiinse waxaad ogaataa mar walba qalbiyadaynuu ku jiraa wuuna nala joogaa jagan weli ma jiifan miyaa wiilkay maya aabe waan jiifan la'ahay aabbe dhaqsa soo kacday weli 4 xitaa lama gaarin maxaa hurdada kuu diiday in ugu filan waa jiiftay wax miyaa rabtaa inaad ii sheegto
ama adigoo howl qaban ahaato ama siyaasad ahaato waa isku meeshi un ha isdhihin waad guulaysanaysaa laakiin mid aan ku sheegaa haddaad tahay qof ilaahay ka cabsanaya oo xaqa dadka ka baqaayo meel walbaba guushu waa kaaga imaanaysaa maxaa yeelay xaqa ayaa kuu hiilinaya aniga hadda waxaan kaaga hadlaaya mataqaana waa khibradda aanu leeyaha siyaasadda ha isdhihin macnaha siyaasi wanaagsan ayaad noqonaysaa intaad siyaasi faataala oo beenaala oo tuuga intaad la tashato aabbana weli waan xasuustaa maalintii koowaad inaan ku dhaha aabba ma waxaa rabtaa wax inaad ii sheegto adiguna waxba igu maadan dhihin aabe 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 وعاكو سلام وكا قاضي كرلا كرناتكا واكو سلام مدني وكا قاضي هاي ما عرفش هذيك كين أمادو هاي عند ربرتش وراخوذي أوي نكين بل مدني ورقد ويسو ديدين مركز دين كوسو تصاي فانسي أندر بردش مدن سكيلو مدن وكبر يا ويران ام بي راجا سبا يجدي مدني 2019 YCRCB baarlamaankooda Kadaba AS Rajmata V Bitun Reddy Nalora Adala Barakar iyo Babita adigan akhri bal booskayga adiga iyo akhri shureesh Babadala Mandigaman Suresh doorashada 2019 wili way socotaa hadeertaana shacab fara badan ayaa wili codeynaya oo wiliba goobta ku sugan guul cajiiba ay gaartay YCB xisbiga Talaguna dhow iyo wiliba xisbiga horumarinta waa ay dhaceen xisbiga YSRCB ayaa ku guuleystay doorashada laga rabay 175 kursi wiliba waxay keeneen 151 kuraasta intooda ugu badan ayaga ayaa ku guuleystay Ra'iis Salema iyo Coastal Andre ayay noqotay YSRCB ayaa guusha hadeertaan loo dooranayaa wax walba ay ahaato ugu dambeyn wixii tartan u dhacaba ayaga ayaa ku guuleystay maantani beledka ayaga ay u shidan yahay sababtoo ah doorashadii muddadan socotay ayaga ayaa codka ugu badan qaatay hadeertaan magaalada ayaga ay u xoreysan tahay xisbi dhisnaa 125 sano oo taariikhda galay si fudud ayaa dhulka loogu jiiday 40 qof oo khibrad siyaasadeed lahaana hal qof dartiis ayay madax hoos wada aadiyeen
doorasho walbaba guushu waxay ku xidhan tahay ama in lagaa cabsado ama inaad ficil aad samaysid ama inaad aad been sheegtid laakiin waxaa cajiiba doorashadii ugu horraysay oo qof caqli oo ku soo baxo hadda xisbigan bal eeg 40 sano ayay waddanka maamulayeen si fudud ayaa looga guulaystay yaa ka guulaystay xisbigii mucaaradka ayaa guulaystay si fudud ayaad wiilkaagii hoggaamiye rasmi aad uga dhigtay ha noolaada xisbigan raajisha karaana waa ku guulaystay xisbiga inuu hoggaamiye rasmi oo u noqdo anigoo ah Jagan Mohan Reddy